بريها وحاسو بحيسي أرن كسابسن إن بنجي دحاء الصومالي لو مجعابايو نين إنجليزا أو ليلا نيكل روبرت أرنتاس هوري أنا مقلي بشي أغسطس سنة كتجي dad badan oo asxaabtayda aan artay waxay soo jeediyeen bacdama bangiga dhexe looga baahan yahay gudoomiye banki shuruudina wad buuxin kartaa ka qayb gal araajida waxa la geenay wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda maaliyadda garaalaha kadibna liiska waxa loo soo gudbinayaa oo go'aanka lagu gaaray Nairobi oo hay'ad caalami ayaa ku lug lahayd taas horta waxyaab la ila naqatay saaxiibaday waxaan u sheegay inkastoo oo Soomaali ajnabi isugu jiraan inaan booskaas u socon oo bangiga dhexe boorkiisa muddan kamid ahay dadka bangiga ziira ka soo bilaabay markii burbur kadib aan ahayn silsilada bangiga dadku waxay u yaqaaneen silsila weyne silsilada waxay kamid ahay waxyaabo la bilqaysto waa la xaraashay Mombasa la geey dib aan u soo celinay intaan boorka bangiga ahay markii dambana boorka waxa iskeen uga tagay oo siimo wada karin markii waxa la ilaalinaa conflict of interest waxa la yiraahdaa hay'ado kale oo u shaqeynay iyo bangiga dhexe inay is anfacayna arkay inaan boorkiisa ka tirsanaado anoo ilaalinaya sharcigaas ayaa isaga tagay arinta hadda ninkan la hadalhayo oo Ingiriiska ah bal marka hore asiga muxuu ahay inaan wax iska weydiino la taliye bangi waa naga kariya wax cusub ma aha laakiin gudoomiye bangi dhexe waxa diidayo sharciga 130 qaybtiisa 4 article-ka koowaad aadis wuxuu leeyahay marka hore qofka bangiga dhexe gudoomiye ka naqanayo ma naga kariyo qof ajnabi ah boorka bangiga wuxuu ka koobmaa 6 qof 5 qof oo aqoontooda lagu soo xulo oo madax banaan waliba shuruudooda ay tahay inayna dawlad u shaqeyn waa shardi inayna u shaqeyn hay'ad interestigeeda iyo interestiga dawladdu ay meel iska soo galayaan in waa shardiga labaad waxa shirtaas waxa dheer gudoomiyaha bangiga dhexe ayaa lixay wuxuu ka tirsan boorka marka uu maqan yahay kaliya ayaa waxa soo fadhiisan karo gudoomiyaha ku-xigeenkiisa ninkan marka hore ma aha Soomaali waa shardiga koowaad shuruudda kale waxa leedahay qof muddo 12 sano inay hadaan filaa dhan waa inuu u shaqeynaa hay'ado maxalli ah oo Soomaali ah ama dawladda Soomaaliya labadaba kama soo shaqeyn qodobkaasna waa ku dhacaa mar kale waa inuu bartay waxyaabaha dhaqaalaha la xiriiro ninkan cilmiyan wuxuu bartay suugaanta Ingiriiska English literature meeshana hees looga baahan ama dhaqan in laga hadlo ama suugaan Ingiriis looga baahan takhasus yar oo sameeyo waa jira oo bartay agricultural economy dhaqaalaha beeraha waa maaddo kamida maadooyinka lagu barto dhaqaalaha laakiin ma cilmi dhaqaale cilmi maamul ma cilmi finance ma waa hal maaddo kamida culumta dhaqaalaha intaas oo shuruud oo burays ayaa imaanaysa wuxuu soo shaqeeyay wuxuu ka soo shaqeeyay Tibet oo ognahay wuxuu ka soo shaqeeyay Ethiopia Suudaan hay'ad bangiga adduunka la shaqeeyay inkastoo dadka badan oo yiraahdo bangiga adduunka waa ka ruqsaystay oo waxaan galay pension howlgab hadduu howlgab galo shaqo kale soo doonto ma qof pension laakiin markaad dhax gashid bangiga adduunka waxaad ogaanay in shaqada laga eriyo asiga oo iskiis uga tagin dhinaca kale waxa leeyahay wuxuu xiriir lahay Som oil and gas shirkad leeyahay iyo nin ruusho milyaneer dad isku xirkooda dad ka shaqeey jiray ayuu ahay waa ka shaqeey kariya xoro u yahay laakiin conflict of interest ay imaanaysa marka qof ka shaqeeya meeshaas dawladda Soomaaliya boorka bangiga xataa ka mid naga kariyo xubnaha caadiga iska dhaaf gudoomiye iyaduna waa culays kale oo sharciga jabinayso waxa la yiraahdo marka sharciga oo dhan in la bedelo si boos loogu helo barihan dastuuri sharci ma lagu dhaqmeeyay waa la iska magacaabi karaa hadii la magacaabayo wax dadkii marka araajida qortay aniga waa ka haray marka arkay Nairobi ay mid markaas waa weydiiyay waxa la yiraahdo waa August nin ajnabi loo soo wada yahay shuruudaas marka arkay in ajnabi hadda nin la wata laba tartamay sidii ee bina istijaabiya una raba imtixaanka aan galay haday saasta kuma jiro dadkii wuxuu laayay short listiga sameeyna laftiisa oo kamid ah hadana marka nin asigu dadka soo xulay short listiga sameeyay hadana asigu ku jiro waxyaabo badan oo isdiidan ayaa iga muuqday al umum bangiga dhexe qof aan Soomaali ahayn ma qaban karto hadii sharcigaas la bedelayo oo baarlamaanka la geenayo oo soo bedelayo hadda baarlamaanka waa iska naqaana hadii la yiraahdo taliyaha xoogga dalka laga dhigay nin Shiineys oo ogoliin hadii la yiraahdo taliyaha booliska nin Kenyatta laga dhigo oo ogoliin wax hadda ajnabiga laftiisa definition badan u baahan oo hadii ninka passport Soomaali oo qaato Ingiriisna oo wato oo laakiin horeeyay waxa watay Sweden Soomaalina waa wato maxaa laga rabaa waxyaabo badan oo wali aan la kala cadeynaa jiro laakiin sida adduunyada loo badan yahay
bangiyada dhexe ee wadamada iyo taliyaasha ciidamada iyo waxyaabaha sirta ku saabsan oo dhan looma dhiibo xataa qof dhalasho ajnabi wato xataa hadduu waddankaas u dhashay ta labaad dadku waxay yidhahaan bangiga adduunka ka shaqeeya war bangiga adduun iyo bangiga dhexe isku shaqo ma yihiin waa su-aashu bangiga dhexe adduunyada waxaa jirta 9 functions waxa la yidhaha 9 shaqo oo bangiga dhexe u gaar ah inkastoo aanka 8 hadda ay tahay hal qodob oo kamid oo bangiga adduunka uu qabto ma jirto isku shaqo ma bangiga adduunka lacag sooma daabaco meel oo lacag ku xareeyo oo dawladdu wax xareeyo ma qabi shaqooyinka laga rabo bangiga dhexe waa ka duwan yihiin bangiga oo adduunka bangiga adduunka waa bangi siyaasadeed dawladda caawiyo accounting malaha wax ma laha dhibaatada kale oo jirto waxay tahay haddana haddii nin ajnabi aad uga dhigto bangiga dhexe haddii bangiga dhexe nin ajnabi aad u dhiibto bangigu ama xafiisyada dawladda waxaa la amray oo sharca inay ku shaqeeyaan afka soomaaliga agaasimayaasha qaybaha joogo ma jiro mid yaqaano af ingiriis qaarkood asuur af soomaaliya ma yaqaan amiin say isu fahmaya mar kasta wuxuu u baahan qof tarjumaad ah marka warqad kasta in loo tarjumo oo bangiga dhexe marka shaqada dhexda dokumentiga waxay ku shaqeeyaan af soomaaliga ma yaqaan ninkaani dadka shaqaalaha oo la contact gareynaya oo bangiga oo shaqaalihiis ka mida qaarkood ma yaqaani af ingiriis isma fahmayaan marka wax aanan aqaanin meel aanan aqaanin laga raraa marka arrintaas waa ila culus tahay laakiin haddii maslaxad loo arkay hadda ciddii u aragtay inay sharciga horta soo bedasho oo sabab loo bedelan ay tahay nin ajnabiha shaqo siinaa darteed ilan macno kale oo bangiga lagu horumarina ma ah ninkan muxuu ka qaban karaa beesha caalamka ma ku qancay oo lacag may kugu siinay nin ajnabiha bangiga dhex u dhiibtay maya waxayba ku arkee wax daciifnima inaa bangigaagu bangi kale oo xiriir leenaa jiro oo ay ka qayb galaan bangiga islaamka oo kale kamid shirkiisa markaa nin ingiriis u dirsato marka guddoomiyaasha la casuumo dhibaatooyin badanaa iiga muuqdo oo aniga ma aha inaan hadda cid gaara aan ku mucaaradaayo ama cid aan ku taageerayo laakiin dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca sharciga markaa ka fiiriyo culeyskaasaa igala muuqdo sababta ay u doorteen waxaa naan kartaa interestyaa imaanayso bangigana waxaa ku qoran sharciyada haddaad akhrisid qofka boorka naqanayo 5 xubnood oo caadiga ka mid naqanayo waa in waxaa looga ilaaliya inaa shaqaale dawlad noqdo markaa bangi boorka ah dan dawladdu leedahay marka bangiga dhexe waa anti autonomy waa hay-adka madax bannaan dadka qaar waxay aaminsan yihiin bangiga wasaaradda maaliyadda hoostago ma hoostago wada shaqeynaa ka dhexayso bis haddii waxaa loo diidaa marka adoo isla dawladda soomaalida u shaqeeya waxaa laga ilaalinaa in interest wasaaradda aad u shaqayso marka miisaaniyad soo gudubsanayso markay kharash dalbanayso bacdama wasaaradda aad ka tirsanta inay saameyn ku yeelato saas daraaddeeda xuquuq badanaa dhuminaya markaa boorka tahay hay-ad xataa private ah ee conflict of interest bangiga dhexe imaan karto uma shaqayn karti ninkan marka haddii la yidhi som oil oo xiriiriye ka ahay waa ka naqon kariya iskiis hadduu ka ahaan karaa weli laakiin haddii interestiga nationka ama bangiga taabanayso in loo magacaabo maaha marka waxaa ii muuqata inay jirto dana gaar ah ma aha dana dhaqaale dana soomaaliyeed ma aha dana bangiga oo dan ugu jirto ma aha dana aqooneed xataa maaha oo khabiir ah bangigeenu waxay ka horeeyey 9 8 guddoomiye uu soo maraa umaleyna camalooba ugu dambeeyey hal nimaa 2 mar kusoo naqday cumar camuudi inta kale hal maray qabanayaan hal qof oo ajnabiga kuma jirin mar ayaa 2 agaasimo oo talyaani ah ma aha guddoomiye bangiga dhexe oo talyaanigu noo keenay si farsamo ahaan ay uga caawiyaan la tali waa naqon karaa qofku farsamo kale waa ka caawin karaa laakiin guddoomiye bangiga dhexe lacagta asaa ku saxiixan guddoomiye ninka asaa biri lacagtaada ku saxiixnaana haddii hadda lacag cusbaa la daabaca layidhaha ilaa asaa guddoomiye ah marka waxyaaba badan oo isdiidan ayaa iga muuqda meeshaas dhaqaalaha wax badanaa wax ka qoray jaamacaddana money and bank ugu yaraan ama sidam ka soo bilaabo ama jaamacaddii waddan ama kuwa kale 8-9 sano maadadaas kaliya waa dhigaya practical waxaaba kasoo board of central bankian ahay dadka go-aanka iskale bangiga dhex masala haddii lacag la samaynayo dawladdu lacag la sameeya ma dhihi karto waxaa ogolaa kara boorkaas haddoona ogolaan ee wasaaradda maaliyadda golaha wasiirada kulle isku raacaan sharci ma naqanayso ilaa ogolaado waxyaaba lacaga badan oo la samey lahaa uu diiday markii dambena saruudaha uga tegey markii la yidhi lacag cusubaa la keenaa ayay ka mid ahayd haddana lacagta cusub oo imaanaysa waa mid ingiriis ku saxiixayo wax ay soo kordhi doonto uma jeedo bangiga dhexe wuxuu u baahan inuu branches ka furto gobolladoo dhan
ayaa waajiba hadda xamar uu ku leeyahay gobolada haddana waxaan filaa inaan u diri doono niman Filibiina iyo niman Swedish iyo Norway inaan gey doono oo la dhihi karo Soomaali lama aamini karo dastuurkuna wuxuu qabaa shaqa nin Soomaaliya oo qaba karo nin ajnabi looma dhiibi karo waa idin qodob kale dastuuri qodobkaasi loo bedelaa idin adkaa doonto waa qodobka kore kan waa xeerkii oo hoos oo bangiga dhexe laakiin meeqa Soomaaliya qaba karta jagadan marka waa isleeyahay wadanka waa laga helaa ama dibadda hadii laga soo ururiyo ugu yaraan 30 ilaa 40 qof oo shuruudahaas buuxin karto waa la helaa laakiin qaar badan ba agoosto markay arkeen in waxa intaada shaqada iskama apply gareynis hadii application ninka aad u geynayso oo ninka la wato hadii go'aanka Nairobi lagu soo gaaray waxyaabo badan qof walba markuu ogaado war iga day waa baasantiin